Coronavirus-ka ka dillaacay dalka China dhammaadkii sanadka 2019 waxa uu noqonayaa cabsida ugu weyn ee laga qabo cudur safmar ah oo adduunka oo dhan saameeya. sababta ka liftay in viruska corona uu si xawli ah u ku faafo maalmihii ugu dambeeyay una gaaro dalal aan hore looga aqoon ayaa keenaysa isla mar ahaantaasna timid maadaama xanuunkan uu ku faafo qaabka taabashada iyo hawada. haddaba waxaanu muuqaalkan aan ku faahfaahin doonaa waa maxay xanuunada safmarka u faafa, taariikhda xanuunada safmarka ee horey u dhacay caalamka iyo qaababkii ay ku faafeen iyo qaabka looga hortagi karo coronavirus-ka oo caalamka haatan faraba'an ku haya. aynu ku horreynay waa maxay safmar xanuun. haddaba safmar xanuuni waa faafitaan si xawli ah ku dhaca dhinaca cudurrada kaas oo durbadiiba gaara guud ahaan gobol ama caalamka oo idil. safmarku waxa uu sababi karaa in geeri fara badan ay timaado. boqolkii sano ee lasoo dhaafay 4 safmar oo caalami ah ayaa dhacay. kii ugu darnaa wuxuu ahaa hargabkii safmarka ahaa ee dhacay 1918 kaas oo keenay geeri lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 15 milyuun ilaa 100 milyuun oo qof, halka aysan 2 safmar oo caalami ah aysan ka iman qoyska coronavirus-ka. laba ka mid ah safmar goboleed ee qoyska coronavirus-ka ayaa ka mid ah kuwa ku dhaca dhiska neefsashada ee bini'aadamka ee aadka u daran, kaas oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan SARS coronavirus, iyo kan kale oo ah fayraska kale ee loogu magac daray wadamada bariga dhexe ee marka isna magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan MERS coronavirus oo isna ku dhaca habdhiska neefsashada bini'aadamka. SARS coronavirus raadkiisii ugu horreeyay ayaa lagu arkay gobolka Guangdong ee dalka China November 2002. tan iyo xilligaasi waxa uu ku faafay safmarka viruskan ilaa 26 dal, waxaana uu ku dhacay dad gaaraya 8,000 oo qof. WHO ayaa sheegtay in la aaminsan yahay in viruskan uu ka yimid fiidmeerta oo u sii gudbisay xayawaano kale oo ay quuteen dadka. MERS coronavirus waxaa raadkiisii ugu horreeyay la arkay 2012 waxaana uu ku faafay dalal badan oo bariga dhexe ah, waxaana la sheegay in geelu uu u soo gudbiyey dadka. waxa uu ku dhacay ilaa Sebtembar 2012 2,994 qof, 858 qofna way u geeriyoodeen xanuunkan dartii, waxaana uu ku fiday 27 dal sida aanu ka soo xiganayno isla WHO. coronavirus-ka 19 ee cusub wax badan lagama oga, hase yeeshee daraasad bilow ah oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in 99 qof ee uu asiibay xanuunkan dhimashadu inay gaarsiisan tahay 11%, ayna aad u sarreyso sida SARS coronavirus. daraasadda hordhaca waxay kaloo sheegaysaa in 8 beri ee hore kadib qofka markii uu ku dhaco fayraskan aan laga dareemi karin. waxaa daraasad kale oo cusub ay sheegaysaa in tirada 8 beri ah ay sii dheer tahay dadka qaar in aan laga dareemi karin xanuunkan muddo 14 cisho. waxaa xigta toddobaadka xanuunka, taas oo ay u badan tahay in degdeg uu u kordho kadibna la dhigo cisbitaal kadibna lagu hayo daryeelka degdega ah 8 ilaa 10 beri. coronavirus 19 waa fayrus cusub, waxaana kaasi uu ku dhici karaa sanbabkaaga. waxaad dareemaysaa heerkul aad u sarreeya gaar ahaan xabadka iyo dhabarka. waxaad dareemaysaa qufac cusub ama mid istaba joog ah, taas micnaheedu waa inaad qufacayso saacadiiba in badan. haddii aad si joogta u qufici jirtay oo fayraskan uu kugu dhaco, waxaad qufacaysaa in ka badan sida caadiga ah. haddaba la xiriir goobta caafimaad ee kuugu dhow, gaar ahaan kuwa bixiya gargaarka degdega ah,
si ay kuu siiyaan talooyinka aad u baahan tahay. Haddii aad isku aragto calaamadaha coronavirus 19, waa inaad joogtaa aqalkaaga ama gurigaaga ilaa 7 beri. Haddii uu haleelo ama uu ku dhaco qof guriga kugula nool xanuunkan, adigana aadan qabin, waa in aad ku nagaataan guriga muddo 14 beri ah. Yaa si gooni ah looga baahan yahay in ay uga taxadaraan inuu ku dhaco xanuunkan. Dhammaan waa waajib, waana ku waajib bulshadu inay ilaaliyaan sidii uu u yaraan lahaa faafidda fayraskan. Hase yeeshee, waxaa jira kuwa u nugul xanuunkan geerina u sababi kara, waxaana ka mid ah kuwa uu hooseeyo difaacooda jirka, kuwa ka weyn da'da 70 sano, kuwa qaba xanuunada joogtada ah sida kuwa ku dhaca habdhiska neefta, waxaa ka mid ah neefta ama qaaxada, macaanka iyo xanuunada wadnaha ku dhaca. Iyo ugu dambeyn, haweenka uurka leh ayaa looga baahan yahay inay si gooni ah uga taxadaraan inay qaadaan xanuunkan sida looga hortagayo. Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo 20 ilbiriqsi mar kasta. Waa inaad dhaqdaa gacmahaaga markasta oo aad guriga ka baxayso ama aad soo gelayso. Isticmaal jeelka nadiifiyaha ee gacmaha la marsado haddii aadan biyaha heli karin. Ha taaban afkaaga, sankaaga iyo indhahaaga, maxaa yeelay fayraskan waxa uu ku barxan yahay mar kasta farahaaga. Ku rid qashinka mandiilka ama warqadda aad isticmaashay isla markiiba. Ha ku qaadan jeebka ama boorsada. Ha ku safrin ama ha raacin baabuurta ama gawaarida ay dadka faraha badan ay wada raacaan. Yaree safarrada aad ku aadayso gobollada ama magaalooyinka kale. Ka taxadar meelaha ay dadka badan iskugu yimaadaan sida maqaaxiyaha, goobaha ciyaaraha iyo shineemooyinka. U hoggaansan awaamiirta iyo talooyinka ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka, siyaasiyiinta degmooyinka, gobollada iyo waddamada aad ku nooshihiin.